dowladda marka la eego oo mataqaana baaqa u soo jeedin lahaa waxa weeyaan in talaabo military in lagu qaado in lagu galo oo la soo qabto oo mataqaana la soo xiro haddana waxyaabaha ceebta waxaa ka mid ah asigoo qof dhan oo islaam in yani ubax yani inuu geeyo yani meel oo qabri ah in yani haddana uu sujuudo ugu horreyn waxaa ku soo dhawaataa Axmed Deeqsi janaalka Shumac TV adigoo ku bilaabaya magacaaga aad u weyn waa ku dhawaa kanaalkiina magacaygu waa Hanad Cabdullaahi waaye Hanad Cabdullaahi xaaladda Soomaaliya iyo maaragtay midnimada ayaa waxaa ku jira maalmahan shucaac kadib markii uu madaxweynaha maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciro uu ku sugan yahay Tel Aviv dhankaasi Israa'iil taasina waxay wiiqaysaa midnimada Soomaaliyeed arrintaasi sidee u arkaan shacabka Muqdisho adiga aad ka mid tahay wallaahi dadka muqdishaawiinta aniga aan ka mid ahay aad ay ugu falceliyeen falku uu ku dhaqaaqanay yani hogaamiyaha maamulka Soomaaliland ee waqooyi madaxweyne Ciro waa mataqaana wax geyiga Soomaalida ugu ka ah marka Israa'iilna waxay ka mid tahay waagii hore dawladeeni kacaanka wadamada baasaboorradooda la diiday oo baasaboorka Soomaaliya in lagu tago koow oo Israa'iil oo Yahuudi ah oo Ilaahay lacnaday labana wuxuu ka mid ahaa wadanka Koonfur Afrika ama South Africa saad u taqaanid labaduba marka in yani madaxweyne maamul goboleed inuu tago haddana waxyaabihii qayimkii iyo ummadii diintooda islaamka ahaa in yani wadan Tel Aviv oo yani dad badan oo muslimiin ah oo Falastiiniyiin ah gumaadaan maalin alla kana mataqaana madaafiici ugu goobeen ku garaaco ayka waxa aragtay ay sameeyeen adduunka oo dhan mataqaana loo aqoonsan yahay wadankaas wadan adduunyada lid ku ah oo qofka adduunka Israa'iilka markuu adduunyada kala taga xataa laga fuquuqo in madaxweyne ninkii hogaamiyihii dhan ee maamulkii Soomaaliland ee goboladii waqooyi loo aqoon jiray inuu tago haddana waxyaabaha ceebta waxaa ka mid ah asigoo qof dhan oo islaam in yani ubax yani inuu geeyo yani meel oo qabri ah in yani haddana uu sujuudo taasna waa waxa wax asiga mataqaana islaamnimadiisa xataa shuca gelinayso marka maadaama aad tahay wiil dhalinyar ubaxa dalka ah maxaad maaragtay arrinkaasi aad ka dhihi lahayd ama aad soo jeedin lahayd dawladda Soomaaliya u soo jeedin lahayd maadaama tani ay ku tahay ceeb ummadda Soomaaliyeed dawladda marka la eego oo mataqaana baaqa u soo jeedin lahaa waxa weeyaan in talaabo military in lagu qaado in loo digo in mataqaana warqad fariin ah loo qoro oo digreete hadduu ku waantoo waayo uu waxay waan in mataqaana fal oo yani military ahaan in lagu galo oo la soo qabto oo mataqaana la soo xiro shacabka marka reer Soomaaliland ka daawan doona Shumac TV oo taageersan ayagana in maaragtay Cabdiraxmaan Ciro uu tago halkaasi maxaa ayagana sheegi lahayd shacabka gabi ahaantooda way diidan yihiin inuu tago mataqaana ra'yigiisana lama qabo shacabku waa shacab Soomaaliyeed waay midnimada ummadda Soomaaliyeed ay jecel yihiin inta badan waa dad Soomaalida mataqaana oo gobonnimada ku fiican dadka reer waqooyiga waa dadkii xorriyadii keena waaye Soomaalinimada ku weyn waxaa moodaa in la cajuubinayo oo awood iyo military lagu dhaqaaqayo in saas u baqayaan mooyee laakiin dad Soomaalinimada ay ku weyn tahay yani waxa uu ku dhaqaaqayna wax asi gaar iyo dawladdiisa leh weeye